mu'minku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka mu'minku jannadiisii ka daawanaya sida innakuba aaladdan yare imminka aan haysanee moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan mu'minka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisi iyo naciimtiisi iyo xuralcayntiisi markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha mu'minku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa le'anna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhulmawt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal uu soo gaadhayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha mu'minku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قشيقي سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقيك الصبح دونا لأن حق إلهي بالله سأرين دونا مرقاسا قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيه